beelaha lixda shidlo ayaa maanta waxay kulan ku yeesheen magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle waxaana kulanka ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka nabadoonnada lixda shidlo dhalinyaro wasiiro iyo xildhibaan ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Hirshabelle sidoo kale waxaa ka soo qayb galay madasha aqoon-yahano iyo qaar ka mid ah musharaxiinta xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Hirshabelle iyaduna kulankan loogu hadlay sidii ay ku midoobi lahaayeen beelaha lixda shidlo iyo sidoo kale sidii u heli lahaayeen kursiga saddexaad ee baarlamaanka Hirshabelle oo ah gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle kulanka kadib ayaa waxay soo saareen war saxaafadeed lagu wargelinayo sida ugu dhaqsiyaha badan inay ku soo xulaan xildhibaanada beelaha lixda shidlo waxaana war saxaafadeedka soo jeediyay injineer Aweys Maxamed Afrax dhammaan duubabka warqadani tooska iyo ogeysiinta ugu socoto waxaa lagu wargelinayaa in xildhibaanada la soo dooranayo uu ahaado qof aqoontiisu gaarsiisan tahay kow dugsi sare ilaa jaamacad ama dugsi dhexe waayo aragnimo 3 sano ah iyo in ka badan labo waa inuu ahaado mid u heelan adeega bulshada iyo xuquuqul insaanka saddex waa inuu yahay qof tuulada laga soo doorto kormeer joogto ah ku sameeyo waqti walba afar waa inuu yahay mid magaalo madaxda xaadir ku ah shaqa banaanka ka ah mooye shan waa inuu yahay qof diyaar u ah isla xisaabtan bulshada soo doortay goorta ay wacdaan sidaas darteed waxaa la idinka codsanayaa sida ugu dhaqsiyaha badan aad u soo gudbisaan magacyada xildhibaanada mahadsanidin Suldaan Axmed Rashiid Sheekh Shucayb dhinaca kale waxaa goobta ka hadlay mid ka mid ah odayaasha madasha ka qayb galay shiidlay idinka wax maamushaan suldaankiina waay saacadan laga bilaabo waa cafiseen anagana waa cafinay waxaan isku haysanay wax weyn ma ahani waxaan rabnaa inta loo dhiman hoolaan sugayso nabadoora sheeganaysiin akhyaaratiin culumaatiin dhalinatiin waxaan jecelnahay marka in saacadan laga bilaabo ninkii wax sheego waa munaafiq ugu dambeyn Suldaan Axmed Rashiid Sheekh Shucayb oo ah suldaanka beelaha lixda shidlo ayaa kulankaani soo xiray anaga waxa naga maqan taliyaha ku xigeen oo saldhiga naga maqan waxa naga gudoomiye Maxamed oo maartay gobol naga maqan gudoomiye baarlamaan naga maqan warkaan adduunyada u taga shidlo gudoomiye baarlamaan hadii waayso meeshaan rakka ka adimayo malayni imaana ku noqonaa Yusuf Maxamed Ahmed Bulsha TV Jowhar.